Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawow kanaalka Afifa Warsame. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago buugga la yiraahdo Essentialism nuxurkiisa. Buuggan wuxuu ka kooban yahay 4 qaybood. Qayb kastana waxay kasii kooban tahay dhowr cutub. Marka gabi ahaanba waxaan dhihi karnaa wuxuu ka kooban yahay 19 cutub. Buuggan waxaa qoray nin la yiraahdo Greg McKeown. Waa runtii buug dhexdhexaad ah oo aanan weynayn, ku dhawaad waa 236 buug. Waxaa taasi dheer luqad fudud uu ku qoran yahay. Waxaana dhihi karaa buuggan waa mid ka mid ah buugaga ugu quruxda badan ee maaragta sanadkan 2023 aan aqriyay. Marka waxaan isku dayaa qayb kasta ee buugga ka mid ah mise cutub kasta inaan isdul istaago. Qaybta koowaad ee buugga waxa uu qoray ku magac daray Essence. qaybtan koowaad waxa uu qoraygu noogu sharaxayaa fikradda essentialism-ka iyo sidoo kale qofka essentialistaha ah aasaaska waxa uu ah. Waxa uu kala saarayaa qofka essentialistaha ah iyo qofka aan ahayn. Qofka essentialistaha waa qof ahmiyad siiya waxyar ee nolosha muhiim u ah. Waxa uu qofkan aaminsan yahay in waxyar oo muhiim ah nolosha laga diirad saaro, inta kalena la iska dhaafo. Qofka essentialistaha waxa uu leeyahay wax kasta adoon ha u noqon, laakiin waxyar oo wax ku taraya adoon u noqo. Waxa uu qofkan aaminsan yahay ku dhawaad wax kasta ee adduunka yaala waa wax micno la'aan ah, laakiin adduunka dhanba waxa adiga micnaha ku leh waa wax yar. Marka qaybtan waxay ka kooban tahay 3 cutub oo cutub kasta waxa uu noo sharaxayaa qayb ka mid ah waxyaabaha aasaaska u ah mise nuxurka u ah fikraddan essentialism-ka. Qaybta koowaad waxa uu ka hadlayaa doorashada. cutubkan waxa uu ka hadlayaa awoodda doorashada. Waxa uu leeyahay aadanuhu waxa uu adoomada kale uga duwan yahay mise xayawaanada kale uga duwan yahay waa doorashada. Qof kasta oo naga mid ah waa uu leeyahay awood doorasho, laakiin dadka awoodda doorashada isticmaala waa ay yar yihiin. Qof kasta waxa uu adoon u noqday filashada bulshada iyo waxyaabaha bulshada ay sameynayso. Qof kasta waxa uu iloobay inuu haysto doorasho, waliba doorasho uu kaga soocan yahay xayawaanada kale. Buuggan essentialism la dhaho waxa uu diirad saarayaa doorashada. Waxa uu dadka ku dhiirigelinayaa oo ku baraarujinayaa inay isticmaalaan awoodooda doorashada. Qofka essentialistaha ah wuxuu og yahay inuu haysto awood doorasho, inuu haysto waqti yar iyo tamar iyo kheyraad yar oo xadidan. Sidaas darteed qofkaani waxa uu isku dayaa inuu waqtiga iyo tamarta u isticmaalo wax uu asagu doortay, laakiin ma ahan wax asaga loo dooray. Buugani waxa uu aaminsan yahay qofna inaysan ku qasbanayn inay qabato waxa ay qabanayso, laakiin adiga doorto waxa aad qabanayso inaad qabato. Marka waa inaad dooratid inaad qabatid waxa muhiimka ku ah, halkii aad raaci lahayd waxa dadka kale ay sameeyaan mise waxa dadka kale ku tilmaamaan. Xigashada quruxda badan ee qaybtan ku dhex jirta ayaa waxay tahay doorashada marnaba lagama qaadan karo, mana bixi kartid, laakiin waa ilaabi kartaa. Marka si guud ha u fikirin inaad doorasho haysan oo doorasho la'aan ahata, laakiin waxa laga yaabaa inaad doorashadaada ilaawday. cutubka labaad waxa ay ku saabsan yahay garashada, yacni awoodda inaad kala garato waxa adiga muhiimka ku ah iyo waxa aan muhiimka ku ahayn. Waxa uu leeyahay qoraygu erayga af Ingiriiska oo priority-ga la yiraahdo mise ahmiyadda lagu yiraahdo luqadda Ingiriiska. qarnigii 14aad wuxuu ahaa jiray mufrad oo ahaan jiray mise kaliya ahaan jiray, yacni priority bis ayaa la dhihi jiray. laakiin sanado kadib waliba hadda qarnigii 19aad ayaa erayga waxa laga dhigay priorities oo waa la jamciyay. Marka waxa uu leeyahay qoraygu priorities-kan waa marin habaabin oo ma jiraan wax priorities ah oo ahmiyadda koowaad hal mar wada galaya. Nolosha wuxuu leeyahay markasta hal waxa ahmiyadda koowaad ku jiro, waxa kale ahmiyadda labaad, ahmiyadda saddexaad inay kala galaan macquul, laakiin wuxuu leeyahay ma jirto wax priorities la yiraahdo oo hal mar ahmiyadda koowaad wada galaya. Qofka aan ahayn essentialista oo fikraddan essentialism-ka aan haysan wuxuu aaminsan yahay wax kasta ee nolosha yaala inay muhiim yihiin. Wuxuu isku dayaa inuu lacag yeesho, inuu magac yeesho, inuu yacni saaxiibo ka daba ordo, bulsho samaysa, yacni meel kasta waa ku dabaqsan yahay. laakiin qofka essentialistaha ah wuxuu aaminsan yahay waxyaabahaas qaar in aysan muhiim ahayn, laakiin qaar ay muhiim tahay. Marka waxa muhiimka oo ka saara uu doortaa oo diirad saara, waxa aan muhiimka ahayn uu ka taga. Wuxuu leeyahay yacni qofka essentialistaha ah wuxuu isticmaalaa fikradda la yiraahdo 80-20. xeerkan 80-20 waa xeer saaid u qurux badan oo ka hadlaya yacni wax kasto 20% waqtiga ka mid aad geliso in 80% ay saameyn kugu yeelanayaan. Tusaale, haddaad maanta isku daydo inaad 100
boqolkiiba 20 social media yacni waqtigaaga ka mid ah inaad social media geliso tusaale 5 saacadood dad maanta social media geliso waxa aad social media geliso oo aad ka daawanaysay boqolkiiba 80 noloshaada ayay saameyn ku yeelanaysaa marka wax kasto 4 saacadood oo waqtigaaga ka mid ah aad siiso waa bis saameyn badan ayay kugu yeelanaysaa marka wuxuu qaybtan kaga hadlayaa qofka essentialista ah waa qofka ku maalgeliya waqtigiisa yacni geliya meesha ugu muhiimsan yacni 4 saac oo waqtigiisa ka mid ah wuxuu geliyaa waxa muhiimka ah ayuu geliyaa marnaba waxaan muhiim ahayn waqtiga iskagama beer dareeyo marka qofka essentialistaha xeerkan ayuu saayid u isticmaalaa oo wuxuu ogyahay wax kasta oo waqti geliyo inay saameyn ku yeelanayso sidaas la ajligeeda wuxuu doortaa wax muhiim ah inuu waqti geliyo cutubka saddexaad ee qaybtan koowaad wuxuu qoraay kaga hadla waxa la yiraahdo trade off waxa la yiraahdaa markuu qofku uu hawl diirad saaro waxa jira hawl kale ee uu dayacayo marka waxa uu leeyahay qoraagan waa caadi inaad hal wax diirad saarto oo aad wax dayacdo nolosha dhan asaas ah ha isku dayin yacni wax dhan inaad hal mar wada qabato wax dhan inaad hal mar wada diirad saarto wax dhan inaad hal mar wada muhiim ka dhigto ha isku dayin kaliya hal waxa muhiim ah dooro trade off ka yacni aqbal inay trade off jiri karaan oo markaad maanta tiraahdo saaxiibadaydan waqti la qaada waxa laga yaabaa qoyskaaga inaadan waqti la qaadan oo qoyskaaga dayacdo markaad tiraahdo TV aan daawana waxa laga yaabaa waqtigii qoyskaaga aad sii lahayd inaadan siin yacni markasta oo aad tiraahdo waxaan sameeyaa waxba dayacay marka wuxuu leeyahay dayac waxa aan muhiimka ahayn haddii maanta TV-ga inaad daawatid iyo inaad ma aragto qoyskaaga waqti la qaadatid mid la dayacayo isku day inaad dayacdid TV-ga inaad daawatid oo yacni markasta trade off ka ah xejisid meesha aan fiicnayn marka waxa uu leeyahay qoraagan haddaad isku daydo inaad hal mar waxa wada qabto aad meel kasta ka muuqato waxay la micno tahay adoo 1 millimeter jiha kasta u qaaday waa 1 millimeter hadoo jiha kasta u qaaday laakiin markaad tiraahdo hal waxaan diirad saara waxay la micno tahay adoo intaasoo kilometer hal dhinac u qaaday marka wuxuu leeyahay awooddaada hal dhinac iskugu geey meeshaad ma aragta intaad wada aadad ka soo laabatid meel kale aadad ka soo laabatid aad enerjigaada kala qaybin lahayd hal jiho hal mar ku dhaqaaq anu imaano qaybta labaad ee buugan qaybta labaad ee buuga wuxuu qoraay kugu magac daray explore mise sahmin waxa uu leeyahay qaybtani uu qoraay kaga hadlaya uu leeyahay qofka essentialistaha ah waa qof saayid wax u sahmiya oo saayid u qiimeeya nolosha waxaan haysanaa doorashooyin kala duwan wax badan horteena yaalo oo ay tahay inaan kala doorano marka waxa uu leeyahay qofka essentialistaha ah saayid u sahmin u sameeya marka sahmintaas darteedna iyo qiimeyntaas darteedna doorashada ugu wanaagsan ayuu ku dhaqaaqaa marka qaybtani waxay ka kooban tahay ku dhawaad 5 cutub ayay ka kooban tahay marka cutubka koowaad ee qaybtan mise guud ahaan cutubka afraad ee buuga waxa uu qoraay ku magac daray escape waxa laga yaabaa maanta noo mashquulsan tahay saaka iskuulad aaday saakay waa maanta waa seexatay quraaca karinaysay qada karinaysay shaqad aaday dhara dhaqaysay yacni howla maanta dhan ku dawaqneed waxa uu leeyahay marka hal mar samee carar yacni inaad u cararto hal mar inaad wax aqrido inaad u cararto inaad fikirto inaad u cararto inaad wax diirad saarto inaad u cararto in horta noloshan aad iska wado aad tiraahdo xaa ka qaldan xaa saxan yacni wuxuu leeyahay hal mar tag meel cidla ah fikir yacni ka fikir waxyaabaha kugu hareeraysan hal mar tag meel cidla ah si fiican wax u aqri yacni buug qurux badan soo qaada hal mar tag meel cidla ah si fiican wax u dhageyso hal mar tag meel cidla ah yacni u carar wuxuu leeyahay ka carar nolosha mashquulka ah ee hal mar intaad meel cidla tagtid waqti naftaada si waxyaabaha kugu hareeraysan ka fikir waxa dhici doona kugu ka fikir yacni hal mar si bilaa buuq ah wax u diirad saar cutubka labaad ee qaybtan mise cutubka shanaad ee guud ahaan buugan waxa uu leeyahay uu ku magac daro qoraago look amaba si miir leh u fiiri waxa muhiimka ah waxa laga yaabaa dadka qaarkii wax dhageysanayaan inuu dhageystaan inay ma aragtay jawaab baxshaan dadka qaar inay wax u fiirinayaan inay ma aragtay hore reaction ka sameeyaan laakiin qoraago wuxuu leeyahay si miir la u fiira waxa muhiimka ku ah wax kasta ma ahan waxyaabo badan miiska saaran waxyaabo badan carrada joogo wax kasta isha ku wada taagan laakiin waxa muhiimka ah oo aad dhahayso waxaan hadaan diirad saarmo waxaan hadaan qabto muhiim ay bari yeelanayaan isku day waxaas inaad si fiican u fiiriso wuxuu leeyahay markaad wax aqrinaysid ha u aqrin inaad ma aragtay reaction bixiso markaad wax dhageysanayso ha u dhageysan inaad ma aragtay reaction bixiso laakiin u aqri una dhageyso
una fiiri si aad wax u barato si aad wax iskugu soo kordhido si aad u ogaato waxa muhiimka ah sababtoo hadda si fiican waxaan u fiiriso u dhageysato u akhriso hal marad waxa muhiimka kala bixi kadibna waa ka tagay laakiin marka adoo maskaxdaadu qaybna maqanta qaybna joogto marka tira waxaan waa fiiraa waa dhageysaa waa akhrina wixii waxa muhiimka hore kama qaadanaysid taasa waxa laga yaabaa inay sababto inaad dhowr jeer ku laalaabato wax marka wuxuu leeyahay isku day hal mar si miir leh inaad u fiiriso u akhriso u dhageysato cutubka saddexaad ee qaybtan mise cutubka lixaad ee guud ahaan buugga wuxuu ku magac daray qoraago play mise cayaar cutubkani waxa uu nafaraya in cayaartu ay tahay qayb asaasi u ah noqoshada qof essentialist ah waxa uu leeyahay ciyaartu kaliya ma aha dhaqdhaqaaq fiican laakiin sidoo kale waxa ay kor u qaadaysaa yacni guushaada iyo badqabkaaga marka ma aragto dadku ay cayaaraan oo cayaar ay sameeyaan waxay naftooda siiyaan yacni waqti sidoo kale waxay siiyaan yacni space yacni mise pause ay maskaxdooda ma aragto ku dabsiyaan maskaxdooda mar kale ay ku charge gareeyaan marka waxa uu leeyahay ciyaartu waxa ay ma aragto ku fududaynaysaa inaad hesho fikrad fresh ah iyo in tamartaada aad cusboonaysiiso taasoo kugu saacidaysa inaad kor u qaado wax soo saarnimadaada iyo hal abuurkaaga qof kasta waxa uu leeyahay yacni qayb caruurnimo oo ku jirto iyo qofka leeyahay marka wuxuu leeyahay isku day inaad qaybta caruurnimada ay kugu jirto inaad banaanka usoo saarto marmar sida caruurta kale aad u boodboodo laga yaabo inaad isdhehdo yacni dadka waaweyn inay cayaaraan maahan inay isaga laakiin waxaa ogaataa qayb yar oo caruurnimo ay kugu jirto mararka qaar intaad aragtid meel buura mistira inta ku ordid makasoo haddana makasoo boodaa yacni intaa taayar aragtid yacni waxyaaba noocaas intaad aragtid mararka qaar ma istira ma samaysa haddana ma istira qof weyn aad dadku amay kula yaabaan marka qoraagan wuxuu leeyahay qaybta caruurnimada ay kugu jirto iska soo saar yacni ha caburin taasi waxay ka qayb qaadanaysaa inaad ma aragta mar kale aad naftaada cusboonaysiin ku sameydo anu imaano cutubka afaraad ee qaybtan sidoo kale cutubka toddobaad ee ma aragta buuggaani waxa uu ku magac daro qoraago hurud qaybtan waxa ay ka hadlaysaa muhiimadu ay hurdada leedahay hurdada waxa uu leeyahay waa hantida koowaad ee aad haysato marka waa inaad ilaalisaa hurdadaada taasoo ah hantidaada hurdada ma ahan wax raaxaysi ah kaliya laakiin waxay asaasi u tahay inaad noolaato qofku hadduusan intaasoo dhowr saacadood hurdin waxaa laga yaabaa in uu noloshiisa ma aragtay uusan sidii u helin marka wuxuu leeyahay hurdadu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu horeeya ee aad tamartaada iyo jirkaaga aad ku cusboonaysiin karto inaad hurdo waqti kugu filan waxa ay kuu kalifaysaa inaad waxyaabo badan aad iska dhaafto oo aad samayn lahayd kuwaasoo micno dara tusaale asxaabtaada ku wacay aw nakeen kaala banaanka aadne may waa seexana haddaad waxaa laga yaabaa banaanka aan aadne markay ku dhaqayaan banaanka ku wadayaan in waxyaabo qaldan ah banaanka kusoo samayn lahayd laakiin haddaad seexato hurdo aad heshay jirkaaga caafimaad ayuu helayaa tamartada way soo cusboonaysiinaysaa haddana waxyaabo qaabdaraa ah inaad samayso aad iska dhiibtay oo aad ka tanaasushay marka wuxuu leeyahay hurdada saaid ay muhiim kugu tahay yacni jirkaaga ay muhiim u tahay xitaa waxay muhiim u tahay inaad waxyaabo qaar aad iska dhiibto way kaa saacidaysaa aanu imaano cutubka shanaad ee qaybtan ama cutubka sideedaad ee guud ahaan buugga waxa uu qaybtan ku magac daray select qaybtan waxa ay leedahay waa inaad samaysaa extreme criteria waxa la yiraahdaa extreme criteria waxa uu ku magac daray uu leeyahay ama uu ku qeexay waa awoodda aad ku degsan karto xeerar ku aadan waxa muhiimka ku ah iyo waxa aan muhiimka ku ahayn waxa ay ka caawinayaan inaad ma aragto extreme criteria aad lahaato inaad si fudud u kala saarto waxa noloshaada qiimaha u leh iyo waxyaabaha aan u lahayn marka haddaad samaysato wax kasta oo xeerkaas aan waafaqsanayn waa inaad maya ku tiraahdo oo aad ka tagtaa marka isku day inaad degsato xeerar saaid u adag tusaale ahaan saaxiibka ayaa yiri nakeen suuqa aan isku raacnay markaas isku day inaad tiraahdo okay saaxiibkay haddaan suuqa u raaco maxaan ka faa'iidayaa inaan suuqa u raaco maxay kusoo kordhinaysaa noloshayda iyo shaqadayda suuqa maxaan uga baahanahay oo haddaan raaco aan hore uga soo qaadan karaa maxaa tan ka muhiimsan oo ay tahay inaan hadda qabto yacni haddii su-aalahaas aad isweydiiso oo aysan kusoo bixin su-aalo kugu riixaya inaad suuqa u raacdo waa inaad awoodi karto inaad tirahdid maya sababtoo maxaad ka faa'iidaysaa waad ka wareegaysaa inaad waqti aadid asaga suuqa uma raacaysa sida inaad caawiso aad alaab la soo qaado culus uma raacaysid kaliya maalin yacni u raacaysaa markaasoo kale waa inaad tiraahdaa maya hawl kale ayaa ay taasha waxa laga yaabaa qaybtan inay marka koowaad ay kugu adkaato laakiin haddaad naftaada ku edbiso ood mar walba naf iska warqab aad lahaato ogaalkaaga aad xaadir ka dhigto markasta waad la qabsanaysaa oo way kuu fududaanaysaa taasina waxay kaa saacidaya inaad waqti badan iyo tamar badan ay kuu soo harto
taasoo aad ku qabsan karto yacni waxyaabaha koo muhiimka ah. qaybta saddexaad ee buuggan essentialismka waxa ay diirad saaraysaa sida loo baabi'in lahaa howlaha aan muhiimka ahayn iyo fursadaha aan muhiimka ahayn si xooga loo saaro waxyaabaha sida dhabta ah muhiimka u ah. waxa uu leeyahay yacni in waxa muhiimka kuwa aad aqoonsato kaliya kuguma filno, laakiin waa inaad waxyaabaha qaar aad iska tirtirto, ayadana waa qayb kaa qaadanaysa inay wuxuu ku kala fududaadaan. marka qaybtan cutubkeeda koowaad mise cutubka sagaalaad ee guud ahaan buuggan ayaa waxa uu diiradda saaraya waxaan la yiraahdo yacni caddaynta, in wax la kala saara la kala cadeeyo marka aysan jirin yacni wax caddayn la yiraahdo yacni oo waxa aysan ku kala caddayn waxaa kugu badanaa haysa yacni inaad lumiso waqti iyo tamar waxyaabo aan muhiim ahayn, sababtoo ma taqaanid wixii muhiimka ah iyo waxa aan muhiimka ahayn. marka ay caddahay shaqada aad qabanayso, mas'uuliyadda ku saaran iyo ujeedada, waxaa ku sahlan inaad muhiimadda abaarto oo aad kaydiso tamar iyo waqti badan kuwaasoo kaa khasaari lahaa. marka waxa uu leeyahay shirkadaha iyo wax kastoo yacni ganacsiyada iyo meel kasta yacni way burburan haddaysan aqoon hadafkooda, haddaysan u caddayn ujeedadooda. sidoo kale wuxuu leeyahay shaqsiga adiga haddaadan aqoon hadafkaaga, ujeedadaada haddaadan aqoon yacni waa dawaaqmaysa. marka waxa uu leeyahay ka fikir waxa aan muhiimka ku ahayn, yacni cadday waxa aan muhiimka ku ahayn. markaad caddayso waxa aan muhiimka ku ahayn noloshaada ka saar, maxay ugu jirtaa muhiimba maba ku ahaane. marka waxa uu leeyahay qaybtaani isku day inaad caddayso wax kastoo maalaa yacni oo ma aragtay qiyamkaaga, ma aragtay noloshaada muhiimadeeda, hadafka u socoto aan horay kugu riixin mise kaa saacideen inaad ma aragtay tallaabo hore u qaado, waxaasna waa inaad iska saarta ayuu leeyahay. aanu imaana cutubka labaad ee qaybtan mise cutubka 10aad ee guud ahaan buugga. cutubkani waxa uu kaga hadlayaa awoodda maya, inaa maya dhahdo waqtiga ku habboon ayaa wax badan bedeli karta ayuu leeyahay. waxa uu leeyahay in maya aad karta dhihideeda waa geesinimo iyo dhiiranaantaas ayaa kaa caawinaysa hanaanka aad kaga takhalusi lahayd waxyaabaha aan muhiimka ku ahayn. haddii aadan ku dhiiran karin mise dhiiranaanta aadan lahayn inaad ma aragta naftaada ku edbiso oo aad noqoto qof waxyar oo muhiimka raaca inta kalena iska tirtira. qoraaygos kama uusan indha tirin in qofku bulsho uu ku dhex nool yahay, qabiilo uu ku dhex nool yahay, oo waxa uu leeyahay maadaama qofka uu qabiilo iyo bulshooyin uu ku dhex nool yahay, waxaa qof kasta uu dareemaya inuu ku qasban yahay inuu qanciyo xubnaha kale ee dariska la ah sida asxaabta iyo qoysaska. qof kasta waxa uu ka walwalaa haddii uu diidmo badiyo inuu waxyeeleeyo xiriirka dadka kala dhexeeya. laakiin waxa uu leeyahay wadada aad taas aga gudbi karta ayaa waxay tahay inaad maya tiraahdo, dadkuna markay maya ku dhahaan aad ogolaato oo aadan xanaaqin ayuu leeyahay. marka qofka uu wax kaa codsado waxaasuna ay yihiin waxaan adiga muhiim ku ahayn, asagana yacni uu kugu lugayahayo ku dhahayo yacni waxaas ila samay, yacni waxaasina wax muhiima aysan kasoo bixin, habab kala duwana waxaa jirta aad uga jawaabi karta ayuu leeyahay. ugu horeyn wuxuu leeyahay waxaad dhihi kartaa waa aamusi kartaa, waxaa laga yaabaa aamusnaantaadaas inuu wax ka akhristo qofkaasi. sidoo kale waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo okay hadda shaqo ayaan ku jiraa, markaan shaqada dhameeyo macquul ma tahay inaan waxaa sameyno. sidoo kale waxaad dhihi kartaa isug aan jadwalkayga fiiriye aniga kugu soo warcelinaya. marba haddaad qofka tiraa jadwalkayga aan fiiriyo aniga kugu soo warcelinaya, waxaa laga yaabaa inuu gadaal kastoo kaaga dago. marka wuxuu leeyahay isku day inaad maya tiraahdo oo dantaada aad raacato adoo iska dhaawicin xiriirka dadka kaala dhexeeya. cutubka 3aad ee qaybtan mise cutubka 11aad ee guud ahaan buuggan, qaybtan waxa uu kaga hadlayaa oo nagu dhiirigelinaya in waxyaabaha qaar aan faraha ka qaadno oo aan iska dhaafno. wuxuu leeyahay waxaa jiro elay la dhaho sankakaas. eraygan micno ahaan yacni waxa uu leeyahay waxa ay la micno tahay dadka bini'aadanka ah waxay u badan tahay markay howl joogteeyaan oo waqti iyo lacag iyo tamar markay howlgeliyaan in aysan mar kale inay howshaas iska dhaafaan ay ku adagto. tusaale ahaan qofka ganacsi bilaabay, ganacsiga uma hormarin, waxa laga yaabaa ganacsiga soo og inuusan ganacsigaas horumar sameyn inuu sii joogtay inuu lacag iyo waqti iyo qarash inuu sii gelsho. marka waxa uu leeyahay waxyaabo noocaasa ayaa dhaco, waxaasina khasaaro bisay kugu sii ma aragtay kugu sii hogaaminayaan. qofka essentialistaha waxa uu awoodaa in uu qirto guuldarradiisa iyo khasaarihiisa kadibna uu iska dhaafo. oo dadka qaar waxaa laga yaabaa waxaan waxba kasoo baxayn inta bilaabaan inay ka cabsadaan in la yiraahdo waxaas meeqa sanaad waday ma iska dhaafi weyday in la yiraahdo mise xaa ka soo bax. markaasoo asoon xitaa waxba kasoo bixin dadka qaar baan sheegaan waxay leeyihiin waxaasa iiga soo baxa ayagoo yacni isgeejinaya guuldarradooda qarinaya. laakiin wuxuu leeyahay qofka essentialista ah wuxuu yiraahdaa
ruuxaas waa bilaabay dhowr jeeraan waqti galsho lacag galsho wayna ihagaaga diiday hadeerna farahan ka qaaday waa iska dhaafay meel kale ayaan ma aragtay laa marka wuxuu leeyahay waa inaad noqoto qof awooda markuu arko hawshan inaysan hore u socon qof iska day kara yacni ha ku dhaganaan oo hadhihin yacni waa inaan ka shaqaysiya yacni hadhihin sidoo kale waxa uu leeyahay uu qaybtan kaga hadlaa wax la yiraahdo endowment effect waxay la micnaataa janjaarka dadku yacni ay u janjeeraan inay qiimo dilaan waxyaabaha ay salahayn halka ay qiimo u yeelaan waxa ay ku leeyihiin tusaale waxa uu leeyahay yacni qof markuu gaari kiraysto lagama yaabo inuu gaarigaas dhaqdhaqo gaarigaas hagaajiyo sababtoo wuxuu aaminsan yahay asoo gaari lahayn waxa sidaas la mid ah dadka guryaha kiraysta gurigaas ay kiraystaan inay ku baashaaraan laga yaabaa sababtoo ayagu ma lahan laakiin waxa laga yaabaa qofku wax yar oo asagu leeyahay oo lacag yar ka soo baxshay markii qof garaafeer gaarsiiso inuu yiraahdo maxaa waxay u garaafaysaa yani wixiisa uu wax qiimo sare ka dhigo marka waxa uu leeyahay qoraygane si aad waxyaabaha qaar uga tagto marka koowaad waa inaad dareentaa waxaan inaadan adigu lahayn ma balihidba haddaad dareento waxaan inaad adigu lahayn inaadan mas-uul ka ahayn biri hadday qaldamaan iyo hadday xumaadaan waa ka tagi kartaa guuldarradoodana waa qaadan kartaa uu dhahayaa marka isku day in aadan waxaan lahaanshiyahooda aadan muujin cutubka afaraad ee qaybtan mise cutubka 12 ee guud ahaan buugga waxa uu leeyahay qoraygu edit ayuu ku magac daray inaad edit garayso noloshaada waxa ay ka saaciday inaad diirad saar lahaato edit garayntu waa inaad iska saarto ama ka fogato wax kasta oo kaa jeedinaya hadafkaaga sida muuqaal ama cod aad duubayso aad u edit garayn lahayd u edit garayn noloshaada edit garaynta sidoo kale waa inaad kala yareyso doorashooyinka oo waxa kuu soo baxa aad saxnimadooda iyo quruxdooda aad ku dadaasho cutubka 5 ee qaybtan mase cutubka 13 ee guud ahaan buugga wuxuuna leeyahay limit inaad xayndaab lahaato ayaa xornimo ku keeni kara ayaa qoraygu leeyahay waxa laga yaabaa xadka iyo xayndaabka inaad u aragto jajoob iyo xanib laakiin inaad naftaada xadido ayaa kuu sahlaysa inaad xaalado qaldan aad dabaalan lahayd aad ka fogaato xayndaabku waxa uu ku dhaqaaleynaya waqtigaaga ayuu ku dhaqaaleynaya tamartaada ayuu ku dhaqaaleynaya iyo wax kasta oo kugu saabsan ayuu ku dhaqaaleynaya marka wuxuu leeyahay xaddi samayso kaasoo ah inaadan isku qasin yacni dadka dhibaatooyinkooda iyo dhibaatadaada yacni wax adiga dhibaato ku ah waa dhibaatadaada dadka dhibaatadooda ma aha dhibaatadaada xaliso qof kale dhibaatadeeda qofkaasaa dhibaatadaas leh adigu ma lehid ha isku dhex qaldin ayuu leeyahay yacni u ogolow dadku inay dhibaatadooda xalistaan adina dhibaatadaada inaad xalisato isku day ayuu leeyahay haddaan waxba caawimaada lagu weydiisan marka aadan xaddi lahayn waxaa tahay ayuu leeyahay qof xabsi u ah xaddiga dadka kale ay dhigtaan sababtoo ah markaad qof kale xaddi dhigto oo aad ku xadgudubto qofkaas wuu kugu ciqaabtaas aad xabsi kugu filnaanaysa marka wuxuu leeyahay baro sida heshiis loola gala dadka oo heshiiskaas looga soo baxo qaybta afraad ee buugga waxa ay ku saabsan tahay oo qoraygu ku magac daray execute fulin marka aad meesha ka saarto waxaan muhiimka ku ah inaad ficil la timaado waa ay ku sahlanaanaysaa marka aad taqaan waxa muhiimka ku ah waxa ku soo baxaya hanaan aad ku fulin karto waxaas muhiimka ku ah marka qaybtana waxay naga saacidaysaa fulinta yacni qaabka aan wax u fulin karno cutubka koowaad ee qaybtan mise cutubka 14 ee guud ahaan buugga wuxuu qoray ku magac daray buffer qorayga qaybtan waxa uu kaga hadlayaa sheekadii nabi yuusuf oo ku fasiray riyada oo dhahaya waxa soo socota sanado barwaaqa iyo sanado abaar ah oo ku jeedinayo in sanadaha barwaaqa dalaga ka soo go'o qaar kamid ah meel loo dhigo si loo isticmaalo sanadaha abaara ah marka qorayga sheekadan wuxuu ka soo qaatay bible-ku ka soo qaatay waxa uu leeyahay sheekadani waxay naxasuusinaysaa muhiimadda ay leedahay bufferka mase kaydinta yacni bufferka waxaa loo isticmaalaa si aan iskaga kala yarayno shooga iyo walwalka yacni maadaama mustaqbalka waxa dhex doona aanan ogeyn si marka aan u helno nafis yar ayaan waxaan samaynaa kayd ayaan samaynaa marka waxa uu leeyahay qoraygu waa inaad kayd lahaataa kayd abuurataa waxyaabaha muhiimka ku ah waa inaad kayd u samaysataa kaydkaas ha noqoto waqti ha noqoto yacni waqti iyo tamar waxay rabtaa ha noqoto inaad kayd u samaysto shaqadan muhiimka ku ah goormaa qabane waqti noocaasa waxa uu leeyahay wax kasta jadwal u sameey oo waqti si isku day howl kasta inaad siiso waqti ka badan waqtiga aad filayso inaad ku dhamay karto ayuu leeyahay tani waxay kaa saaciday in stresska oo kaa yaraado maadaama aadan ka baqayn in waqtiga uu kugu yaraado wax kasta waxaan u filanaa dhinaca wanaagsan laakiin waxa uu leeyahay qoraygu filo wax xun inay dhici karaan una diyaar garow waxaas xun qaabkii aad u xalin lahayd cutubka labaad ee qaybtan mise cutubka 15aad ee guud ahaan buuggan wuxuu qoraygu ku magac daray subtract marka aad wax badan jarto
oo aad wax badan ka tanaasisho ayaa natiijo badan soo baxaysa ayuu leeyahay. Waxa laga yaabaa in dadka qaar yiraahdaan si wax badan aa u hesho waa inaad wax badan arrintan galisaa, input badan inaad samayso, output badan aa u hesho. laakiin asaga wuxuu leeyahay marka wax badan jarto, wax badan ka tagto ayaa natiijo badan ku soo baxaysa. si waxa uu leeyahay aad fulin u samayso, ka fikir carqaladaha imaan kara, xalli carqaladahaas ama iska horwareeji inaad ka taqalusto oo aad jarto wax kasta oo ka jeedin kara meesha aad u socoto, wax kasta oo ka jeedin kara xagga aad u jeedo. waxay ka saacidaysaa in hawsha aad rabto aad u qabato si nidaamsan oo aad u guda gasho si dhammaystiran. marka waxa uu leeyahay jar waxyaabaha ku jeedin kara, jar waxyaabaha carqaladaha kugu ah. cutubka 3aad ee qaybtan mise cutubka 16aad ee guud ahaan buugga waxa uu ku magac daray qoraago progress, awoodda guulaha yaryarka ah. qofka essentialistaha ah iskuma dayo inuu hal mar wax badan qabto ama inuu hal mar guul weyn gaaro, laakiin waxa uu ka bilaabaa tilaabooyin yaryar. waxa uuna u dabaaldegaa horumarada yaryarka ee uu sameynayo. inaad guul weyn gaarto kuma xirna inaad tilaabo weyn qaado oo natiijo degdeg ah aad hesho. si hadafkaaga muhiimka ah aad u gaarto, qaad tilaabooyin yaryar oo ka saacidaya inaad horumar samayso. waxa muhiimka ah waa hanaanka ee natiijada maahan ayuu leeyahay. cutubka 4aad ee qaybtan ama cutubka 17aad ee guud ahaan buugga waxa uu qoraayo ku magac daray follow. samaynta routine-ka ma ahan wax la dafiri kara ayuu leeyahay. inaad horumar samayso uma baahno hal mar aad juhdi gasho, laakiin waxa muhiim ah ayuu leeyahay inaad lahaato routine ku riixaya waxa aad rabto dhankooda. routine-ka waxa uu ka saacidayaa inaad carqaladaha kala yareyso, waxa uu ka saacidayaa inaad fahamto muhiimadda iyo muhiimad darrada wax kasta. routine-ka waxa uu kuu sahlayaa inaadan dareemin culayska juhdiga aad ku jirto. marka wuxuu leeyahay waxa aad rabto inaad gaarto samayso caado yar ee kugu riixaysa meesha, oo wax routine oo aad maalin kasta aad samaynayso. cutubka 5aad ee qaybtan mise cutubka 18aad ee buuggan waxa uu qoraayo ku magac daray focus. nolosha waa hadda iyo halkan ayuu leeyahay. isweydii waxa hadda ku muhiimka ah iyo waxa hadda aad qaban karto. waxa laga yaabaa in tagto hore aad ma aragtay ka fikirayso, aad ka murgayso, ama mustaqbalka aad ka walaacsantahay oo aad ka fikirayso, laakiin waxa muhiimka ah ayaa ah inaad hadda diirad saarto. tagta way tagta lama bedeli karo, mustaqbalkana ma gaartid, oo birada aad mustaqbalka dhahayso ayaa ma aragtay maalin uun hadda ku noqonaysa. marka wuxuu leeyahay waxa hadda aad qaban karto qabo, waxa hadda aad ka shaqeyn karto si mustaqbalka aad u saameyso samay ayuu leeyahay, inta kalena iskaga tag. cutubka 19aad cutubka ugu dambeeya ayaa waxa uu leeyahay P. nolosha asaasiga ayaa waxa ay tahay inaad noqoto sida aad tahay. qofka ku nool nolosha essentialista waa qofka og inuusan la mid ahayn dadyawga kale. marka aad og tahay inaad hal qof tahay oo dadku aysan ku matali karin, mise inaad qof iska dhigta aysan ka yeelayn inaad qofkaas dhigto, yani inaad qofkaas noqoto, waxaad dareemay inaad adigu control-ka hayso, inaad adigu awoodda leedahay, inaad adigu waxa aad rabto aad qaban karto, yani waxa aad rabto aad samayn karto. marka waxa uu leeyahay adigu isahaw, adigu noqo. inaad ahaato essentialista waxay ka saaciday inaad ku noolaato nolol bilaasha leyd ah. marka gunaanad ahaan buuggaani waxa uu muhiimadda saarayaa waxay tahay in laga tago wax kasta oo maaragtay aan muhiim ahayn, in laga tago. inaadan isku dayin inaad dadka kale iska dhaadhiciso, inaadan isku dayin inaad meel kasta ka muuqato ayuu leeyahay. kaliya ka muuqa meesha lagaga baahan yahay, inta kalena ka maqno. Soomaalida waxay tiraahdaa meel kasta ka muuqa waa lagu muunad beela, yani maahmaahdaas iyo buuggaani saaciday isku leeyahay. marka buuggaani intaas ku saabsan yahay, waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkaani. haddaad la jeceshahay asxaabtada sidoo kale qoyskaga ayagana waa la sheer garay kartaa. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.